ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa maanta tababar u qabatay in ka badan 30 suxufi oo ka howlgala magaalada Boorama iyo guud ahaanba gobolada Awdal iyo Salal ee dhaca galbeedka Somaliland. tababarkan ayaa muddo 3 cisho ka socon doona magaalada Boorama kaasoo kor loogu qaadayo aqoonta iyo waayo-aragnimada saxaafadda. aqoon kororsigan saxaafadeed ee Soldier wado ayaa waxa la kaashanayaan ururka FIK ee fadhigiisu yahay dalka Finland. هاشم شيخ عمر قود قدوميا صحفيين تصولجا اقاسمها قودة صولجا يو قدوميا صحفيين تصومالان صولجا محمود عبد جامع حوتو ايا كورمايا قونسيغان ما انت اللوغو قبانيا صحافة قبول كاود الله وحينا كورمين اهمية دو حنبارسن يا توبركان يغو دردار نكردوان ودري بهد الصحفيين تيا كاول قشاود الله إن بلغ المطاعم توابرك ودوريني توابرك نوع وقع المطاعم إذا إداري المخبرين أيضا إن شاء الله فنقول لك على الوطن توابرك سبت جوز عمرنا سبت الأمانة حتى يسمين تأكيد الحياة إن إذن ساعة سبت وطريق الإنسان أنا مرتاح حقيقة بسلي لفت مدينة الإنسان وحلوبة هي waxyaalaha dadka kala taxaynaya inaad ilaalisaan oo haddii jirmad kaa baxday ay laba qalbi soo horkeento ama laba af soo horkeento ama laba digbil soo horkeento dee xaggii eegana ciqaabaad galaysaa ummadiina nagala adkayso dhinac kasta oo arrintaas saxaafadda khusayso hadday noqoto suxufi hadday noqoto dadweyne hadday noqoto xukuumadda in runtii dhinaca wada qabto oo mid walba mas-uuliyadda saarada laga soo baxo sida tababarkan runtii aan ka rajaynayna in aasaaskii saxaafadda oo in badan waxyaabaha lagu fadhiyaa oo la yidhaahdo aqoon malaha in baysigii iyo sabkii aan ka soo galno isla markaana ujeedooyinka saxaafadda guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliya waxay ku dadkay ogaano isla markaana anshaxay suxufiyiinta ama anshaxay saxaafadda runtii oo in badan laga caawina inaynu halkan midda Big Johnson waxa uu ka mid yahay khabiirada tababarkan bixinayay waxa uuna sheegay in aqoon si kororsigan wax weyn ka tari doono aqoonta suxufiyiinta ka howlgala gobolka Awdal. It is only through responsible media that the citizens will get information of what is happening in society. waxaan suuliga saartahay si uu u gudbinahay xog macquul ah dadka muwaadiniinta oo ku nool xaqiiqada musuqmaasuqa. Again, the media is just repeating what the very powerful people in the society, politicians and business owners are saying. Then this means that some information is not going to be disseminated. aqoonsi kororsigan ayaa dhawaan lagu soo gabagabeyn doonaa iyadoo guud ahaanba suxufiyiinta deegaanada Soomaalidu aynu bislayn in saxaafadda wanaagsani ku leedahay bulshada horumarka. waan la Saciid Cabdi TV magaalada Boorama.